السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan waa barnaamijkeennii habeennimo waa habeennimo jimco ah oo sabti soo galayo taariikhduna waa 25 bisha Juulaay sanadka 2025 waan hubaa inaad si weyn uga bogateen macluumaadkii iyo wararkii aynu ku soo gudbinay barnaamijkeennii galabnimo iyo kii subaxnimo labadaba qodobada barnaamijka caawa aan idinku hayno waxaa ka mid ah kadib markii la sheegay in wada hadaladii Gaza arrinteeda ku saabsanaa ay burbureen Trump iyo Netanyahu ay warar soo saareen ayaa caawa waxa war soo saaray ninka la yiraahdo Smotrich iyo Ben Gvir oo ku faraxsan in wada hadaladu burburaan gaajeysiinta dadku ay sii socoto xaaladda Gaza meeshii ugu xumayd in la gaarsiiyo haddaba wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa war soo saartay oo leh Masar iyo Qatar wali waxay aaminsan yihiin in wada hadaladu aanay burburin oo markaa fursado kale ay jiraan iyaguna ay diyaar u yihiin inay wada hadalada sii wadaan haddaba dhanka kale Israa'iiliyiintii ayaa la yaaban hadal uu sii daayay ra'iisul wasaaraha Israa'iil kadib markii la sheegay wada hadaladii Gaza in markaa ay burbureen haddaba muxuu sheegay Netanyahu oo lagu wareersan yahay barnaamijkan idinku haya qaybaha dambe ee barnaamijka caawana waxaan idinku soo gudbin doonaa safaaradaha Masar ay ku leedahay dhowr dal oo Yurub ah ayaa albaabada la isugu dhuftay waliba waxyaabo la yaab leh ayaa albaabadooda hortooda lagu sameeyay dad mudaaharaad iyo Falastiin taageersan ayaa sameynaya falkaas iyagoo ku eedeynaya Sisi iyo maamulkiisa in ay hortaagan yihiin oo ay qayb ka yihiin gargaarkii la gelin lahaa Gaza haddaba sheekada ayana qaybta dambe ayaynu ku faahfaahin doonaa inta aan ku jirno wuxuu warar soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. Xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London halka waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halka ka howlgashay howladaynadoodu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan kulanti wanaagsan habeen wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeennimo haddaba waa habeennimo jimco ah oo ay soo galayso sabti marka barnaamijka qodobka ugu horeeya waxaynu kaga hadli doonaa xaaladda Gaza iyo wada hadaladeeda warbaahinta waxaa haystay saacadihii la soo dhaafay sheekada ku saabsan wada hadaladii waa burbureen xaalku meelu aadi doona lama yaqaano ninkii Trump uu ka hadlay eedda arrintaasi Xamaas oo dusha ka saaray Netanyahu sidoo kale uu hadlay waxa socday laba nin oo marka waxa jirta macaangigiina oo taqaanaan waxa la yiraahdaa ninka la yiraahdo Smotrich iyo Ben Gvir wasiirka maaliyadda iyo midka amniga Israa'iil labadoodu weligood wada hadaladan inay guuleystaan horta iyagu ma rabin weligood wada hadal hawshiisa hadii la soo qaado dawladdan ka baxayna ay ku hayeen maanta oo marka la leeyahay wada hadaladii way dhamaadeen maxay marka sheegayaan wixii ugu xumaa hadda ma tageen dadka hal laayo hal la dilo hal cunto maarta cuntayaan loo gelinin waa waxay rabaan iska sheegaan haddaba markaan idintu soo wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray Al Jazeera waxay leedahay Smotrich iyo Ben Gvir labaduba waxa ay ka hadleen arrinta Gaza maadaama wada hadalada ay burbureen marka waxay rabaan in maartay Gaza arrinteeda in la sii kululeeyo wasiirka maaliyadda Israa'iil ninka la yiraahdo Bezalel Smotrich iyo wasiirka amniga Israa'iil Itamar Ben Gvir ayaa labaduba arrinta Gaza ka hadlay kadib markii la sheegay inay joogsadeen
wadahadaladii xarakada xamaas iyo israa'iil ee markaa looga arrinsanayay arrinta gaza iyo xabad joojinteeda. haddaba wararku waxay intaa ku darayaan, smotrich wuxuu yidhi waa dhammaatay wadahadaladii, mar dambe lalama hadli doono kuwa ergagixisada ah sida uu yidhi. wuxuuna sidoo kale sheegay waan xaqiijin doonaa guusha markan way soo dhowaatay. dhanka kale ninka la yidhaahdo ben khabiir ayaa isaguna war la yaab la sheegay. wuxuu sheegay wadada keliya ee maxaabiista aynu ku soo ceshan karno waxawaaye kulaha oo aan guul ku gaari karno in gargaar dambe aan ballagayn gaza. in markaa dadka gaza jooga ninkii gaajo dilaysa wada loo furo la yidhaahdo iska bax, gazana aan qaadano oo aan ka dhigano meel aan leenahay. nimankan marka ay waxba ma qariyaan, waxay hayaan way soo daadinayaan. mid wuxuu leeyahay mar dambe lama hadlayo nimankan irhaabiyiinta kula argagixisada, wuxuu ka wadaa xamaas. midkan kalaa ka daran wuxuu leeyahay dadka yaaba wax gargaara loo gelin, wadadana ha loo istaago kulaha ninkii gaajo inay dhimato ka baqaya halkan ha ka soo baxaa la dhaho. iyagaa soo baxaya kulaha, markay soo baxaan dhulkaan ka qaadanaynaa, istiitaan dhulka waa dhisanaynaa, annagaa habaysanaynaa, kala qaadanayn. maxaa isu wareerinaynaa wadahadal iyo waxaan iyo maxaa keenu ku leey. marka ninkaa hawshaasuu wataa. marka dadkan waa dad mowqifkoodu halkaa taageen. dowladaha ingiriiska, faransiiska iyo jarmalkana bayaan midaysanay soo saareen. warkooda waaba haddii la dhagaysanayo laftirkoodu hawshan ay daacad ka yihiin aa laleeyahy. maxaa waaye bayaanka in degdeg gargaar loo geliyo gaza. israa'iil ay hawsha gaza iyo gargaarkeeda qaramada midoobahay adeeda uga harto, xabad joojin rasmiya in la gaaro, in maaragtay waxaas la sameeyo, in maxaabiista la sii daayo, in saas la sameeyo. warkaas ay soo saareen waxaa la yidhahdaa bayaan mushtaraga la yidhahdaa, macnaha war lagu midaysay. faransa, germany iyo ingiriis waa saddexda dowladood ugu tunka weyn yurub. marka warkooda ma shaqaynaa, ma hawl kale ka leeyihiin laftirkooda, maxaa u aamusantihiin yaa laydin dhihin may ka wadaan lama yaqaano. dhanka kalena 100 xildhibaan oo baarlamaanka ingiriiska ka tirsan ayaa ra-iisul wasaaraha cadaadis ku hayoo leh aqoonso adigana falastiin sida macron oo kale, adiguna ha ka harin. ra-iisul wasaaraha canada isaguna waa aqoonsanaa uu leeyahy. laakiin waxaasoo dhan maraykanka afka u dhigtay. muxuu leeyahy safiirkii maraykanka wuxuu yidhi haddaad rabtaan inaad aqoonsataan falastiin dhul siiya u dhahay faransiisow, dhul siiya goboladiina mid ka mid a falastiin siiya, marka meesha ku aqoonsay inta dhul uma yaalo. trumpna maanta muxuu lahaa ninkii macron asaasuu yidhi yaaliyin, markaasuu wuxuu yidhi iska hadlayaa ninkaas laa macna waa yidhi hadalkiis macnaba male. marka ragga marka halkaasi marayaan. marka wadahadaladii marka ma burbureen, ma u dhammaatay. qatar waxay leedahay wadahadalada may iyo masar waxay leeyihiin weli wadahadaladu rajay leeyihiin, waa lasii wadi karaa. haddaba marka aan idi tuso, aljaziira waxay leedahay qatar iyo masar waxay ku adkaysanayaan inay sii socdaan, dhexdhexaadintooda ay sii wadi doonaan, iyadoo la leeyahay wadahadaladu weli ma u dhammaanin oo ma burburin. halka warar hore soo baxa la sheegay wadahadaladu inay joogsadeen oo ay burbureen. marka masar iyo qatar waxay leeyihiin annaga weli dhexdhexaadnimadii waa sii wadayna, hawsha waa wadayna. laakiin maraykan ergadiisa wuu qaatay, israa'iil ergadeedii waa qaadatay, khalaas iyagu wadahadal waa burbureen. xamaas sida aan rabna haddaan ka weynin macnaha waa burbureen wadahadalada, sida annaga aan rabno hadday samaynayn ma jirta dheh. waay qodobkaa isaguna halkaasa kaga gudbaa. qodobka kale caawa wararka soo kordhay waxaa ka mid ah netanyahu ayaa war sheegay hadaaye. warkiia marka la yaabo ku noqday, warbaahintii iyo dadkii yuhuudda ahaa ku wareen. markii la yidhi wadahadaladii waa joogsadeen ayuu wuxuu la soo booday khiyaar thaaniya aadina. khiyaar thaani waxawaaye doorasho kale oo aan maxaabiista kusoo furanayna aadina. marka dadkii waxay leeyihin ninkan muxuu dooranaa, dagaal xooga kusoo furanaa uu ku galay dagaalka, xooggii waa shaqayn waaye, wadahadallaa laysla aaday, wadahadalladiiyo qaar maxaabiista ka mida ku furtayba.
laakiin xooggii waa u shaqayn waayey haddana xoogu soo aado waa shaqayn waayey hadda muxuu samaynaa yidhahdeen marka khiyaar thaaniga oo uu ku soo daysan karo maxay xoog ama xaajo masama ama xal inuu ku keeno arig xalkii waa burburaa layidhi xooggiina waxba waa ku qaadi waay muxuu samayn karaa le marka waxaa xataa wareeray yahuudiya hadalkiisa ku wareertay ninkan macusoo wax u wada ay leeyihiin haddaba markaan idin tuso telefishinka aljazeera wuxuu leeyahay telefishinka kanaalka 12 ee israa'iiliyiintu ay leeyihiin wuxuu sheegay mu'asasada amniga Israa'iil ayaa waxay fahmi weysay hadalka Netanyahu haddaba kanaalka 12 ee Israa'iil wuxuu sheegay mu'asasada amniga ee Israa'iil waxay yiraahdeen ma fahmayno waxa qasadkiisu yahay iyo ujeedadiisa hadalka ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu kaasoo la sheegay in uu sheegay in wax bedel ah qaabkii loo soo celin lahaa maxaabiista ay sameynayaan wax la yaab leh ayaga ku waraysa mu'asasada al-amniya mu'asasada amniga warka amniga iyo wixii warbaahintii yahuudiya ku wareen warninkan waxay yiraahdeen muxuu sameeyaa sidoo kale ku soo deyn karaan wakaan ma sixra ma maxaa u haraydeen dagaal waa galay waa soo deyn waayey wada hadal wixii loo ogolaaday uu soo qaatay wixii kale waa laga haystaa wada hadalkii waa burburaa la yiri waxa kale uu ku sameey karo ku soo deysan kara maxay tahay leeyahay ayagii wareeriyo hatta waa aniga oo isaga baashaalay sida taa ugu baashaalay haddaba qadar xayisiisa kadib waxa galaynaa sheeko cusub oo caawa soo korortay oo la leeyahay dhowr safaaradood oo Masar ay ku leedahay Yurub ayaa albaabkooda waxyaabo la yaab leh lagu sameeyay waa laga xiray dad Falastiiniyiin maartay oo Falastiin taageersan oo xanaaqsan ayaa sameeyay waxaan dhammaanba bulshada Soomaaliyeed iyo waalidiinta la socodsiinaya gaar ahaan magaalada dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo gobolada in macadka sare ee Beacon International Academy maamulkiisa sare uu kugu talagalay waxbarashadii ardada in looga faa'iideeyo iyagoo jooga gudaha dalka Soomaaliya maamulka sare ee Beacon International Academy waxa uu ku talagalay in ubadka aqoontooda kor loo qaado haddii ay tahay GCSE caalamiga iyo waliba manhajka caalamiga oo waxbarashadooda weliba gabdhaha markii macadka ay ka faa'iideystaan ay si fudud ku gali karaan kuna heli karaan guud ahaanba jaamacadaha magaca weyn leh ee caalamiga ah ee dunida mar haddii qaabkaasi laydinku diyaariyay maad ka faa'iideystaan waalidiinta Soomaaliyeed ee gudaha dalka joogow macallimiinta aqoonta iyo kartida leh ee macadkan isaga ah ee idin ballan qaadaya in ardaydiina fahamkooda iyo aqoontooda ay kor u kacaan si degdeg ah isaga diiwaan geliya macadkan Beacon International Academy ee fursadda siinaya idinkoo jooga gudaha Soomaaliya aqoonta oo kor loo qaadaa hay fursad qiimo leh u tahay maamulka sare ee Beacon International Academy. Sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya. haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Backlands jidka 6 Avenue City Park. dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol, 3 qol, 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran waa nooca loo yaqaan duplex. haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiim hanti yeelo kala xidhiir telefoonada ma jeceshahay barashada qur'aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markaas Daaru Taqwa waxa kugu baraya qur'aanka hab casri ah online maadooyinka aad ka baran karto waxa kamid ah qur'aanka kariimka igada luqada carabiga iyo culumta shareecada isdiiwaangelintu way socotaa fadlan horugaad waxay faahfaahin kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaadi dugsiga markaas Daaru Taqwa kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waxaynu maraynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka qaybtan waxaynu kaga hadlaynaa maalmahan waxa aad isu soo taraya eedeymaha Masar iyo madaxdeeda loo jeedinayo la leeyahay sidee gaajo nin muslina oo caraba agtiina jooga dhowr kiiloomitir idin jira ugu dhiman kara adigoo baabuurtii iyo raashinkii wixii oo dhan idin ag dhooban yihiin ma jiirtaan oo u geysaan adika ka masuula adika ka dambeeya anaga kama masuulneen deedaasa waa la isgaraacayaa social media
baashi marka way soo gudubta. hadda waxaa la isku ballansaday safaaradaha masar ay ku leedahay yurub horteeda in albaabada laga xiro, weliba rinji guduudan lagu shubo, sawirada siisi iyo waxaas inta lagu daadiyo meesha rinjiga guduudan oo laga wado dhiig, saas dhiigga qaybaa ku tiin dadka la laynaya. arrinkaa marka masaarida ma jecla, nimanka keligii taliska waxaas hadlaysa ma jecla, waxay jecelyihin ammaanay jecelyihin. adiga cirkiga dhulka adaa kala haya, hogaamiye qatara tahay, saasaa tahay, saasaa jecelyihin. laakiin waxaas hadlayso waaba dhibaysaa. cunug yar hadduu wax ka sheega xataa waa wareeraya. haddaba marka aridatuso wararkii ugu dambeeyay sheekadaas, aljaziira waxay leedahay dad u ololeynaya dhinaca falastiiniyiinta naashituun la yidhaahdo ayaa waxa ay xireen albaabada safaaradda masar ay ku leedahay yurub qaybo ka mid a. haddaba dadkan mudaaharaadaya ayaa waxay ku hor mudaaharaadeen safaaradda masar ay ku leedahay magaalada la yidhaahdo hamburg ee waddanka jarmalka, iyagoo taageeraya gaza, waxayna cambaareynayaan siyaasadda lagu gaajaysiinayo dadkaas, iyo waxay codsanayaan in la furo macbar rafax oo xisaarka ama go'doominta laga qaado. haddaba sidoo kale safaaradda masar ee magaalada haig ee waddanka holland ayaa iyadana albaabada la isugu dhuftay kadib markii dadka iyaguna falastiin taageersan ay hor dhoobteen oo ay mudaaharaad ku sameynayeen. waddanka norwayna waxaa la sheegay safaaradda masar in markaa iyadana lagu hor mudaaharaaday oo la xiray, oo markaa dadka ay ku qaylinayaan in la furo macbarka rafax. dhanka kale waxaa la sheegayaa finland in iyadana safaaradda masaarida ay ku leedahay halkaas la xiray, oo markaa la sheegay dadku inay codsanayaan in gargaarka loo furo gaza. waay masar ma gelin kartaa mise ma gelin karto waa hawl kale, laakiin dadku adduunku waxay aaminsan yihiin masaaridu inay arrinkaa wax ka og tahay. sababtoo ah masar haddii ay ku adkaysato waa gelinaynaa yidhaahdaan, waa lala dirira ama waa la gelinaa. israa'iilna maanta dagaal masaari ma rabto, hoosta isaga jiraano culays fara badanaa fuulaya. marka arrinkaas waxaa leeyahay masaarida hadday ku adkaysato way gelin kartaa, laakiin iyagaa rabin. iyaga laftirkoodu ma rabaan nimanka gaza xukuma, waa ikhwaana la yidhahdaa, akhwaan muslimiin waa ay nimanka la yidhaahdo xamaas. masarna akhwaan muslimiin waa necab tahay. sheekadaas waxyaabaha hoosaa jira oo carabtan kala weyn, waxaas taaganba dadkan dhimanaya kala weynaa jiraa lagu leeyay. marka waa sheeko wareersan. barnaamijkana caawa waa naga intaa. waan hubaa inaad si weyn uga hesheen macluumaadkii iyo wararkii aynu kusoo gudbinay barnaamijkayga subaxnimo iyo kii galabnimo. kan caawana waan filayaa isaguna inaad daawan doontaan. haddaba waxaan idin xusuusinayaa janalkayga kale ee qisooyinka nadaara 2 qisadii jimcaha ayaan soo geliyay maanta. halkaa ayaad iyadana ka heli doontaan. dadka qisooyinka jecel waa ku faysteynaysaan. intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.